gudoomiyaha Boholgaras ee gobolka Gedo Ibrahim Cabdi Madoobe ayaa kormeeray dugsiga hoose dhexe ee Xaaji Cabdullaahi Fiiqow oo ay wax ku bartaan ilaa 300 oo arday. Abaarta ka jirta gobolka Gedo gaar ahaan Boholgaras ayaa saameyn ku yeelatay qaar ka mid ah ardayda wax ka baran jirtay dugsigani, kuwaasi oo qoysaskoodu ay ahaayeen xoolo dhaqato, waxayna u guureen jiinka webiga Jubba iyo goobo kale si xoolahooda daaqsin iyo biyo ay ugu helaan. Sidoo kale macallimiinta ayaa ka cabanaya mishaar la'aan, agabka waxbarashada oo aan ku filnayn iyo dugsiga aan lahayn darbi ama xayndaab kaasi oo xoolaha bulshadu ay leedahay fasalada iska soo gala xilli ay socoto duruusta, sida uu sheegay mid ka mid ah macallimiinta dugsiga hoose dhexe ee Xaaji Cabdullaahi Fiiqow. macnaha ku soo bandhigaya baahida iskuulka hoose dhexe ee Xaaji Cabdullaahi Fiiqow ee degmada Boholgaras. haddii aan idinkaga warramo iskuulka asaga xajmigiisa iyo qarada uu leeyahay wuxuu ka kooban yahay 6 qol oo ah kuwa ay ku qaataan ardaydu casharada ku qaataan, iyo 1 qol oo xafiis ah oo waxa weeyaan dukumiintiga macallimiinta iyo macnaha waxa weeyaan dugsiga waxbarashadiisa meesha macnaha laga hagaaya oo sida macnaha jirtaba ah, iyo 1 qol oo bakhaar ah oo iskuulka waxyaalaha agabkiisa macnaha waxa weey lagu kaydiyo oo lagu waxa weeyaan xareysto. marka 8 qol ayuu ka kooban yahay. sida aad ogtihiin dadka deegaanka ku nool asalkoodu waxay ahaayeen dad iska xoolo dhaqataa oo Soomaalidu ay tiraahdo waxa la yahay naf ku nool. marka maadaama sida dadku macnaha ay ka soo jeedeen oo dad reer magaalo oo asli aysan ahayn, waxa dhacday abaarihii in ummadii macnaha ay la kala firxadaan oo ninba meel macnaha uu canugiisi iyo xoolihiisa la aado. marka meesha wax ku soo xaadiray waxay noqdeen 93 baa ku soo hartay oo waxay danta kalifteeda waa mid ayada ah oo duruufta abaarta ah oo guud ahaan caalamka ka jirto, gaar ahaan gobolka Gedo si gaar ah u saameysay oo ay waxa weeyaan hay'adaha samafalka oo heer federaal iyo heer maamul goboleed ay marxaati ka yihiin. taas waa inta macnaha hadii aan ka gudbo xagga magaranaysa ardada iskuulka waxa weeyaan waxaan u soo gudbayaa baahida macnaha uu leeyahay. macallimiintu wax mushaaraad ah oo rasmi ah ma haystaan. mushaaraad oo rasmi ah oo macallimiinta ay ku shaqeeyaan ma jiro oon ka ahayn dadkoodii macnaha deegaankoodii iyo dalkooda dhimasho ay u dhimanayaan waxaan ka ahayn. marka waa arrimaha sababay ardada inay yaraatana taasa ka ka ah oo macallimiinta moraalkooda inuu jabay. waxaa baahida labaad ah oo keenay waxyaalaha sababay ka mid ah iskuulka in ardaydiisu ay yaraato qoodin la'aan wax la yiraahdo oo sida aan ognahay waxa ka jira deegaanka gobolka macnaha Gedo intiisa badan qoodin ba iskuulada macnaha laga bixiyaa oo ciyaalka macnaha iskuulka la siiyaa. marka maadaama qoodinta ayada ahayd aysan hadda meeshan ka jirin weligeedna aysan soo gaarin, dadku waa in ku garaadle haddii macnaha ay waxhelayaan wax yar dunawi ah haday arkaan way imaan lahaayeen. waxa kaleeto oo waxyaalaha iskuulka baahidiisa ka mid ah qolalka oo nagu yar oo saad u jeedaan hadii iskuulku waa iskuul degmo qolalkiisu waa yar yihiin 6 qol macnaha in ardada ay wax ku qaataan aan idin soo sheegay marka hore 273 ah waa macnaha waxa way ciriiri bay ku tahay. waxa kaleeto baahida dugsiga ah oo diir la'aan meesha aan ku noolnahay waa meel macnaha waxa weeyaan miyi xigto hadda laakiin isqaantay diir la'aanna way jirtaayo oo iskuulku diir ma lahan, dayactir fiicanna ma lahan. waxa kaleeto qalabka xafiiska iyo qalabka magaranaysa ardada ay ku dhigtaan qolalka oo kuraasta waxa weeyaan ay laftooda way yar yihiin, wixii horena way iska jajabeen in la caawiyo waan u baahanahay. waxaan waxa weeyaan marka baaq u dirayaa hay'adaha samafalka oo leh heer federaal iyo heer maamul goboleedba in waxa weeyaan iskuulka Xaaji Cabdullaahi Fiiqow hoose dhexe in wax alla wixii uu ku lahaa gobolka Gedo oo mudnaansho baahidiisa inay sida waxa weeyaan ugu dhaqsiyaha badan inay noogu soo gudbiyaan ay noo soo gaarsiiyaan waan ka codsanaynaa. insha Allah ta'ala kullina waxaan rajaynaynaa baaqanaga inay ka soo jawaabaan. gudoomiyaha Boholgaras Ibrahim Cabdi Madoobe ayaa dhankiisa ka hadlay caqabadaha ka jira dugsiga haddii aan wax laga qaban oo xirmi doono. waxaana dowladda federaalka Soomaaliya qurba joogta u dhalatay Boholgaras hay'adaha taageera waxbarashada ugu baaqay in ay wax ka qabtaan dhammaan waxyaabaha uu u baahan yahay dugsiga. asaasiya inaan si dhab ah oo wadaagno wixii aan kala kulanana aan u baahino cid alaali ciiday ku sayso, haday tahay heer federaal, haday tahay heer state iyo maamul goboleed, haday tahay hay'adaha caalamiga iyo haday tahay NGO localada iyo hay'adaha maxalliga ah. sidaa darteed ayaan maanta kormeerkeena ayuu ku aadanaa. baahidu waa labo
mid mustaqbal dheer iyo dhib badan ay la soo mareen midna ay tahay waxa ay cimiladu iyo abaaruhu keeneen marka sidaas inaan maanta kormeer ugu soo aadnay wixii aan soo aragnay ayaan rabnaa annagoo hadda aan fadhino xafiiska maamulaha ayaa waxaan rabnaa baahidii aan aragnay siday tahay inaan ula wadaagno cidda ay qusayso koow waxaan u malaynayaa waxaa la diiwaangeliyey 400 oo 10 dhiman 390 arday ayaa sanadka la diiwaangeliyey waxaa waxbaranaysay 273 maantana waxaa noogu nimid 92 waa farqi aad u kala weyn annaga oo og sida ay wax u jiraan oo dhabta ah sababtoo ah waxaa la yidhi qoftiisii qaadi waayo ammaan qoorta ma saarto ruux naftiisa u baktinaayo ee waxbarashada waad garan kartaan biyaa la waayey cuntaa la waayey adeeg kalaa la waayey dadku wuxuu ahaa boqolkiiba 70 xoolo dhaqato beeraley way ka qalaleen beerihii maxaan ku raahdaa xoolihiina way leedeen soddonka kale oo awal aan waxba haysanin iyo dadweynihii kale oo maxaan ku raahdaa xoolo dhaqatada ah isku meel baa la istaagay qaar guuro sida doolow iyo degmooyinka dariska aan nahay u guuro qaar maxaan ku raahdaa webiyada u carara markay biyo waayeen awgeed fuustada biyaha $8 $10 ayay ka tagtay Boholgaras marka waxbarashada ayaa hoos u dhacday taas marka waa baahida ugu adag ee maanta la soo kulanay oo guud waa hoos u dhaca ardayda waxbarashada sanad dugsiyeedkii dhiganaysay oo hoos u dhacday qodob waa ka qodobka kale waxaan malaynayaa waa midna daashaday waxa weeye daryeelka macallimiinta iyo adeega xafiisyada iyo qalabka maxaan ku raahdaa ardadu ay ku barato kuraasta waxaas oo dhan oo cariiri naga galay wali dugsigan kamuusan helin wax gargaar ah dowladda federaalka dowlad goboleedkii isbadbedelaysay ee gobolka Gedo ka jirtay maamul goboleedka Jubbaland maamulka gobolka Gedo waxaan malaynayaa inuu midna aysan wax ka soo gaarin hadda waad aragtaan ee dhibaatooyinka jiro marka waxaan baaq u jeedinaynaa dowladda dhexe federaalka wasaaraddeeda waxbarashada wasaaradda kasta oo ay qusayso in ay gacan ka geystaan sidii iskuulkan uusan meesha hadda u taagan yahay wuu xirmay ayaa la dhihi karaa wuu sii socdaa haddii aan toddobaadkan ugu soo aadan aysan roobabka imaanin oo naacawda ilaahay naxariis aysan soo celin iskuulkan wuu xiran yahay ayaan dhihi karnaa suusa iskoolka ku xirmin wasaaradda waxbarashada iyo hiddiyaha tacliinta sare ee dowladda federaalka maamul goboleedka Jubbaland maamulka cid kasta ay qusayso hay'adaha caalamiga ah NGO-yada localka hay'adaha maxalliga ah cid kasta oo muslimiin ah ama aan muslimiin ahayna waxaysato in ay iskuulkaas sida ku sii socon lahaa hadday tahay qaybta macallimiinta hadday tahay quudinta ardada hadday tahay adeega ka maqan ayaan ka codsanaynaa si naxariis leh mar walba aan ku celcelinaynaa waxaan halka baaq uga jeedinaynaa dadka shakhsiyaadka raaxaji Cabdullaahi Fiiqow ama maxaan ku raahdaa qurba joogta kale wadanka u dhalatay ama xildhibaanka ahna wasiirka waxbarashada asaga oo maxaan malaynayaa aan wasiir ahayn oo maxaan ku raahdaa xildhibaan ahayn ayuu gacan ka soo geystay maanta marka waxaan dareemaynaa inuu gacan ka geysan doono shukran baan leenahay taariikhdiinu ma hari doonto tii awowgiin iyo abiin ma hari doonto ajri xasanaan Allah idinka siiyo Cabdinuur Cismaan Cabdi dalka TV degmada Doolo Soomaaliya ee gobolka Gedo